السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal jankiina waxaaba crypto waa walaalkii maxamed jaamac insha allah videoga waxaan kaga hadli doonaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee saameeyey maaragtay hoos u dhaca suuqa ku yimi taasoo aynu eegayno qodobo fara badan si aynu taxliil yaro wanaagsan ugala soo dhex baxno iyo suuqu meesha ku wajahan yahay badintooda waxaan hore ugu sheegay videogan inii soo baxaya imaka waxaan ugu codsanaya inaad dib ugu noqotaan oo daawataan videogana waxaa kasoo wareegay 3 bilood 3 bilood wax faraqa suuqa kuma iman inkastoo uu suuqu sare kac yar uu sameeyey maaragtay ilaa marchna video aan ka sameeyey waxaan sheegay 3 bilood soo socda march laga bilaabo ilaa iyo maaragtay june inuu suuqu sare kac u samayn doono laakiin predictionka aan sameeyey 3 bilood waxaa ka dambeeyay akhbaaro aad iyo aad u xun oo suuqa saameeyey saraxatan taasoo marxalad xasaasa ay suuqyada caalamka oo dhan ay marayaan خاصة هان cryptocurrency-ga aynu inaku danaynayno insha allah akhbaaraha iyo wixii saameeyey hoos u dhaca imika ku yimina waxaynu kaga hadli doonno videogan kusoo dhawaada intaynaan gudagelin oo aynan ka hadal maaragtay qodobada saameeyey suuqyada caalamka waxaan xasuusinayaa tashiishii koorsigu weli waa furan yahay waxaan furnaan doonaa insha allah ilaa iyo May 2022ga koorsiguna biidnillah tacaala wuxuu bilaabmi doonaa bacda alciidka haddaad danaynaysid insha allah waxaad igala soo xiriiri kartaa telegramka boardka yare telegramka scam baad ka qaadi kartaa adoo jawaankaaga isticmaalaya kadibna wuxuu ku xawilayaa telegramkii iyo accountkayga oo halkaas aad igala soo xiriiraysa insha allah sababta u horeysa ee suuqyada caalamka maaragtay saameeyey waxaa ka mid a federaaliga maraykanka ama baanka dhexe maraykanka odaga timaha cad ee balaayada ah ilaahay nagu saladay Jerome Powell waa madaxa baanka dhexe maraykanka oo yidhi waxaan doonaynaa inaan kordhino sicirka faa'iidada si maaragtay ay u kabaan sicir bararka maraykanka jira aad iyo aad u xun 40 sanadood ugu dambeeyay sicir bararkii ugu xumaa ee maraykanka dhaca ayaa imika maraykanka jira marka sababta u horeysa waxa weeye in sicirka faa'iidada la kordhiyo taasina dabcan saameyn weyn waxay ku yeelatay stookyada maraykankuna had iyo jeer waxa ku xidhan stookyada kale caalamka xiriir weyn kriptada iyo stock marketka maraykanka ayaa ka dhaxeeya that's why waynu aragnay inuu sicirka bitcoinka iyo cryptocurrency-gaba ee guud uu soo daatay ayaamihii u dhaweedena dhaaftay sababta kale insha allah eegi doonaa sababta kalena waxa weeye doolarka maraykanka oo soo laabtay iyo China oo cudurkii corona uu ku soo laabanayo mar kale sida halkan aynu ku aragno magaalada Shanghai oo ay lockdown ay ku sameeyeen amba ay xidheen halkaasoo 20 milyan oo qof magaalada lagu xidhay kadib markii la sheegay maaragtay in koronihii dib ugu soo laabtay Chinaha arrintaasina warwar bay suuqyada caalamka ay gelisay khaasatan suuqa stock marketka maraykanka maadaama xiriir business uu ka dhaxeeyo maaragtay maraykanka iyo Chinaha sababaha kale jiraan waa iska waadax oo iska caadi dagaalka Ukraine iyo maaragtay ka jira Ruushka iyo qaybta aan laga hadal oo ah shipmentka ama maaragtay alaabihii la rarayay amba shirkadihii wax rarayay iyagoo ku xaniban haddaad imika aad gashaan stookyada iyo cryptocurrency-ga iyo wax walba waxaad aragtaan in wax walba ay overprice yihiin amba sicirkii loogu talagalay amba dadku ay rajaynayeen inay ka iibsadaan inay ka qaalisan yihiin taasoo iyaduna sabab u ah oo aan odhan karo waa sababaha ta ugu weyn oo dadkii maaragtay profityadoodii waxoodii la baxaya maaragtay dadkii dee 5 sannadood ka hor amba 10 sannadood ka hor iibsaday oo iyagu sicir bararka doonaya inay ku kabaan amba maaragtay lacagaha ay ka heleen maaragtay profityadooda inay ku kabaan sicir bararkan jira taasina waa sababaha ugu muhiimsan insha allah waxaanu dur yar istaagnaa imika bitcoin iyo taxliishiisa bitcoin haddana yurad lu istaagno monthlygan kusoo bilaabaynaa candlekii walba waxa weeye 1 month amba bildan taasaynu aragno inuu priceku meeshii ugu sarreysay uu gaadhay inay ahayd 69,000 uu gaadhay laakiin closekiisu wuxuu ahaa 62,000 oo dollar marka mar walba closeka candleka ayaa accurate amba saxa inkastoo weekyadan lagu xisaabtamo marmar laakiin mar walba waxa muhiima in closeka calaamada maaragtay la dul saarto halkan haddaynu aragno waxaynu aragnaa inuu price inoo sameeyey waxa la yidhaahdo bullish flag oo qaab continuation amba naqshad maaragtay sicirka ka turjumaysa maaragtay inuu sii socon doono laakiin waxaynu aragnaa in sellersku amba dadka iska iibinaya suuqa ku soo bateen ilaa imika muddo 6 bilood oo maaragtay bitcoin hoosa loo soo waday sababahaynu sheegnay videogana ayaa ka mid ah waxaad moodaa bitcoin inuu soo samaynayo wixii uu hore u sameeyey amba 2019kii 9 bilood uu hoos u dhacu ku socday taasoo aan isleeyahay amba aan u malaynayo sanadkanna sidii oo kale ayuu bitcoinku samaynaya oo hoos u dhacaas sii wadi doonaa ereyooyinka laga filan karana waxa uu horeeya 30,000ka hadduu soo dhaafana waxaan u malaynayaa 20,000ka inuu soo taabto Elliott wave haddaynu isticmaalana waxaan arki karnaa inuu maaragtay wavekii afraad inuu areadan ku beegan yahay
u dhaxaysa 20,000 ilaa 15,000 dollar kadibna raaca dambe insha allah tacaala sidaa uu sii socon doono uu gaari doono 100,000 ee cid walba ay rajaynaysay amba ay ka sugaysay maaragtay bitcoinku inuu gaadho 88 waveka haddaynu ku xisaabtanno exactly saasuu ahaanayaa halkan waxaa inoo saaran trendlinekaasoo aan weli la jebin laakiin haddii la jebiyo maaragtay bishan amba bisha dambe arrintaasi aad iyo aad bay ugu xumaanaysaa bitcoinka iyo altcoinka in qaabka loogu yimaado halkan ayaan rajaynayaa kadibna raacaa dambe aynu raacno biidn illah tacaala weekly chartka haddaynu ka eegno bitcoinkana intan haddaynu iska masaxno waxaynu aragnaa inuu samaysanayo asaguna naqshad ah head and shoulder oo halkan areadan maaragtay necklinekii inoo noqon karto hadduu jebiyana cabarkiisa saasaa lagu qiyaastaa kadibna exactly areadanu ka filaynay ilaa 19,000 ilaa 15,000 u dhaxaysay ayuu soo gaari karaa amba targetku ahaan karaa laakiin halkan aynu rajaynaynaa amba ka sugaynaa inuu bitcoinku maaragtay inoo holdgareeyo maaragtay support linekan amba trend linekan ujeedaa oo support uu noqdo kadibna insha allah halkaa saa loo dulmaro at least 3 touch uu soo sameeyo uu sarakac kadibna uu sii wato taasaana cid walba ay rajaynaysaa iminka xitaa haddaynu eegno bitcoinka waxaynu aragnaa moving averageyada 50ka iyo 21ka kuwaasoo maaragtay marka briceda laisku celceliyo 50ka cisho iyo 21ka cisho inuu hoos maray weekly time frame baan joogaa arrintaasina waa arrin aad iyo aad u xun insha allah meelahan ilaa laga soo biyacabo rajaynayaa san sheeganay 30,000 iyo trend linekan ayaa support culus u ah ba meel maaragtay bullisku kasoo noqon karaan ay noqon kartaa markaa saraxatan waa rad xasaasi aynu maraynaa suuqan insha allah laga dutoonaado doolarka maraykanka haddaynu eegno waxaynu aragnaa asna inuu 3 touchkii uu ku dhow yahay meel hore laga soo celiyey meel labaad laga soo celiyey halkana laga yaaba in laga soo celin karo laakiin momentum aad iyo aad u xoogan ayuu ku socdaa taasoon u malaynayo ina bullish flaggan dhaqaaqa maaragtay beri hore sameeyey haddaynu soo cabarano amba aynu soo qaadanno ilaa meelahan inuu doolarka maraykanka gaari karo waa macquul ilaa halkaa aynu cabaranayna ee hore looga soo daadiyey inuu gaarana waa macquul laakiin siday tahayba doolarka maraykanku wuxuu samaynayaa sarakacaana waxa ugu wanaagsan amba ugu wacan ee u sababa sicirka faa'iidada oo la kordhinayo haddii la kordhiyana printkii amba dibaacaddii maaragtay doolarku way yaraanaysaa oo wax limit leh ayuu noqonayaa taasoo iyaduna u sabab noqonaysa amba sicirka doolarka maraykanka inuu sare u kaco wixii isbedela amba wixii suuqa ku cusubna insha allah tacaala way nala socodsiinayaa khayr badan bay nii rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullah